maalmihii u dambeeyay waxa magaalada Berbera ka socday qabanqaabada xafladda dhagax dhigga wajigii koowaad ee dekedda Berbera taasi oo ay dhismihiisa hirgelinaysay shirkadda DP World ee waqtigan maamusha dekedda magaalada Berbera waxaana xusid mudan in goob fagaara ah ay u diyaarsheen maamulka shirkadda DP World taasi oo ay ugu talagaleen inay xafladdaasi ka dhacdo dhagax dhigga iyo khudbadda iskugu jirta balse gebi ahaanba waa la joojay isla markaasina qalabkii goobtaasi yaalay ayaa dib looga raray iyadoona lagu raray baabuurta xamuulka qaada lamana garanayo xafladdaasi la sheegay inuu madaxweyne biixi imanayo waxa baajay ee waqtigan dib u dhigay waxaana ay arrintani ku soo beegmaysaa warar maalmihii u dambeeyay la isla dhex marayay oo sheegaya in madaxweyne biixi imanayo magaalada Berbera isla markaasina uu dhagax dhigayo dekedii cusbayd ee ay dhisaysay shirkadda DP World ee waqtigan maamusha dekedda Berbera ayaa muddo 2 sano oo wax la haysay maamulka iyo gacan ku haynta dekedda Berbera balse aan ilaa imika wax dhismo ah ka bilaabin dekedda Berbera iyagoo hore u sheegay inay marka ay dekedda la wareegaan ay bilaabayaan dhismaha deked cusub waxaana ay shirkadda DP World u muuqataa mid ku fashilantay dhismaha dekedda cusub iyadoona la dareemayo inaanay isku salbanaanayn xukuumadda madaxweyne biixi balse waxa aynu eegi doonaa 11 bisha 10aad ee 2018 oo uu sheegay madaxweynaha Somaliland in ay bilaabayaan dekedii cusbayd sida uu xaalku noqdo Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV magaalada xeebada Berbera